dhacay marka wiilka wuxuu dhacay waan sheekaysanay waa isfahmi weyne idinkana maxaa dhacay waan sheekaysanay ex-kii weeyaan hay waa siduu sheegay hay hadda waxa kala maqnayn 6 bilood miya meelahaas halkeebaad isla gaadheen markii hore meel fiican meel adigu waxa isla sheekaysanay 3 bilood ma 3 bilood oo dhan haye marka waa kaas xarigiisa soo wacay ugu yiraahdo waa isku soo laabana hadda naagtu raadinay maxay tahay marka waariyaae xalay baba waxay waa maxay عبر ما هلا دبا يا حسن هلا hadal waxa weeye inantan waxa weeye waa egaskeygi weeye isku wadan baanu joognaa isku meel baanu joognaa ma garatay haye waxa weeye maalintan guur ku heshiinay oo way isguursanayna waxa weeye aan muddo waxaan sugay maraha 4 bilood baan guurkeeda diyaar u ahaa haye war bal hadaadka waxa weeye waxbaanu ku heshiinay 3 mabda bay soo badhigtay waxa igu tiri 600 gram dahab igu meher 600 gram dahab igu meher waa koow haye xajkayge bay tiri haye xajkayge iyo 600 gram dahaba aan madhabkan qodaa waa laba wax weeyaan haye iyo naag hayla guursan saddexdaas soo bandhigatay haye waxaan ku yiri laba waan ku rumayn karayaayo 600 gramna wax weyn ma ahan ku dhahay xajkana waa watay kana laakiin taa gabadh kale ma ila guursanaysaa waxaan ku yiri kuma jiraan ku yiri anigu taas haye deeraga dumac iyo maxay iyo dacarminda kama dhamaato oo hal naagaba ma haysta maxaad labada madlacan la iska tiraado hore u socotay SSC boy habartankii maayer kadib aroos baanu tagnay wiil baaba iyadoo la leeyahay la baray la leeyahay wiilkana waa jacaylkayga iska baro anaa ka arkay markaa ma waa iska daay oo gabadhii dhameeyay iyadoo wiil dhan la barayo la leeyahay hebel ayaa wiilkan baro way rag badan tahay baro markaa naciima igada kaliya wareysanaysa aniga ma wareysatid maya suga daba cadnaan igal moodka igal cadnaan waxa waa la xalinaya waxan wax weyn ma moodka gal ku soco nutella ilaahay wuxuu kugu ogyahay sheeg nutella ku soco runtaan kuu sheegay ninkan wixii kasta waa isku heshiinay guurkii markan guurkii marayna baa ku arkay naag kale anu intaan ninka igu arkin ma garanaysaa ka hor naag ku arkay naagan garanaya ku arkay ka bacdina waa leeyahay dulkeena wuxuu ku leeyahay ani afar lay banay aniga hayaba gormo afar loo banayna anigi baa hadda iskuursan guur ku heshiinaba haye warila naka waxaa bal hadda hadda weydii maktabad keenaya mise naag buu saa u raadinaya wariyaahe cadnaanow dhageysatay gabadha ayra quruxda badan kula dal kula joogto weeyaan kowdhe wiil baan soo saarayaa waa la idin dhex gelayaa caashaqi halkii baa laga sii qaadayaa maxaa kale idin walaal anigu caashaq mar gaar u meeyay dambo inta la galo inan kale ay barnaciimay hantideediyo maalkeeda ku baabaaday inantaana mar dama ku soo laaban maayo hantideediyo maalkiya ma daayeer badin badan ahayd maxaa daayeera telefoonka TikTok ku jirtaan iibiyay dhagayso telefoonka live ka inta taxtana iibiyay naaraya ku wareed ku dhamaade suga laba gudub suga hal telefoon iyo hal laptop buu iibiyay wiliga waa beenaale waayay muxuu ku iibiyay hal laptop iyo naaka soo baxmuudka maxaa tiri أنا حتى كوهاد لا يتلفون كان يسقى يبي هل لابتوبنا ويبي سوق هرت الشيطان كمرة لبعض يا مرصد حد يا ما فراد بلا نارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا بسم الله الرحمن الرحيم دا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قصة ليها ما تشوق عن تدكي أو والله يرنكم ولا دميني يا مفوقة والله مفوقة ولا أنا مركز تلفون كويبي ما قال ده أنت هبلا يستر وريا عيبوبين
مستر تلفون بعد لو لغو دجينيا سوق يان مغعيه لغو سو قوريني سوغا yaan hadhow magacyo lagu bixine naciima waa ku digtay suga waxaad samaysay baa daanyeer baad ahayd oo gabadha waa gabadha xanaanaysanaysay oo reerkaagii baad ka dhiganaysay suga horta maxamed wali ma jooga maxamed wali waa wiilkii oo ma sha Allah heshiis baan wallahi galeynaa bilaahay sug labadii noomuudka igu jira maxamed wali ma jooga horta horta ilaahay baan idinku dhaariyay run ma tahay habreena ilaahan kugu dhaariyay run ma ka tahay nin baa iga tahay run wallahi dade wala waa run habreer maxaa been miya lagu dhaartaa waa runtahay okay suga hadaba dad baa soo qoray way ciyaarayaan ma ciyaarayaan guys horta maxamed wali ma jooga laakiin naciima ma hadlaa sugde wad hadlaysaa walaale sugbal meesha waa la xalinayaa waxbaa yara yimi daayarnimadii iyo waxaas naga daaya tiimkaasoo waxaad wadaan waan soo saaraynaa tiimkeeni guddigii ma joogtaa maxamed wali wuu joogaa yes waa kana guddigeeni weeyaan maxamed wali oo walaalo requestiga soo gal maxamedow maxamed daar ma joogaa maxamed daar aadna soo gal bal requestiga walaalo waynu xalinaynaa arrinka wallahi bilaahi laba qof oo wax ka yara dhaceen oo dhallinyaraa weeyaan waa la xalinayaa yaan tuuraa dee walaalayaal waan tuurayaa dadka dhanba dee maxamed daaro ma lagu soo qaban karo maxamed weli oo ma lagu soo qaban karo maxaan sameeyaa markaa dad baan tuurtuurayaa suga isagana telefoon baa soo galay suga bal istiga intaa furtid xid markaa waa laga yaabaa inay dad isugu soo furay okay waa anigaa furay waa anigaa haddana xidhay soonta guys walaalayaal ilaahay baan idinku dhaariyay dad oo ka baxa requestiga dad ha ka baxaan boqolkiiba kor u dhaafeen walaalayaal please requestiga ka baxa waa idin bariya garkiyo gomada idin haystaa ee ka baxa maxamed oo soo qabso maxamed daare iyo maxamed wali maxamed daare waa kanano maxamed wali na aawe maxamed wali هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مود إيقل واكنا محمد ولي لبدينا محمد داري محمد ولي لوضع قفل اللي يراعه ما شاء الله تبارك الله وحكلاقاتين قولك لبقفو إسرادين يقوم الله إسكوم الضرو لبقفو إسيقاني ميلاد استقانين بوحلا ديكتا قبل حتى واحد ترويا متوبت كينيسا ويلكو سيرجي تشينيا telefoonka dhan isaga aybiyay laptopkii adduunka waa laba qof oo isku dhamaaday marka maxamed wali ma joogtaa maxamed daar isug walaalo oo ku madcelinayna soo qabtay suga arrinka waa la xalinayaa maxamed wali ma joogtaa walaal waa kula joogaa maxamed wali arrinka waa dhageysanaysay labada qof annaga haddaan israbin ma isku kabayno laakiin anigu waxaan arkaa laba qof oo dhallinyara oo qurbaa jooga intaynu dad oo ma aragtay kala fog oo aan is aqoon isu raadinayno labadan qof ee already is yaqaana bal aan la hadashiino tala iyo tusaale siisiin ku socda anigu waa ka baxay aad iyo aad waa mahadsan tahay si fiican waa ii maqashaa sooma aad iyo aadna labadiinuba waa ugu mahadsantihiin sida aad u soo qabsateen guddigii qolka yes waa idin maqalnaa waadixan ku maqalnaa ku soco waa mahadsantihiin dhammaan golaha waa salaamayaa walaalkii maxamed dheerna waa salaamayaa cadnaan adigana walaal aadan kuu salaamayaa nutella adigana sidoo kale dad islaam ahaan nahay haddii dad haddii ay wax dhex yaalaan mar kasta waxaa fiican in maslaxada la raadiyo laba qofooda waxaa tihiin sida hadda aan dhegaysanaynay isyaqaana walaaloobay xiriir dhex maray muddo wada socday balse intii walaalkeen cadnaan sheegay iyo inta ay sheegtay walaasheen nutella wax lagu kala tago oo ahdigii iyo isbarashadii iyo guurkii wax looga tago ma yaalaan cadnaan adiga hadda hadalka ugu bilaabaya adaan raga gabadhan walaasha waa baratay heer waxaad la gaartay inaad jeclaatay aad guur ku soo qaaday walaale mararka qaar markii aad axdi gasho sacrifice badan buu kaa rabaa ma dhacdo in laba wada socotaay
ee probleme aysan soo dhexgelin ma dhacdo wax kastana xalay leeyihiin waxaad aqbashay 3 shuruudood saddexda shuruudood ee walaalo kugu xirtay sida aad noo sheegtay waa arinta dhaqaalaha dahabka 600 gram in aan la guursan iyo midda saddexaad haddii aad ii iftiimiso oo aad qaadatay labaad aqbashay mid baa diiday midka xajka maasha allah ayaduna gabar yani caqli badan saddex shay codsatay mid oo ah xagga dumarka masiirka dartii ay rabto inay kaligaa ku lahaato waxaana dareemi karaa haddii ay diiday inay rabto inay kaligeeda ku yeelato macnaheedu maxay tahay way ku jeceshahay inay xaj tagto ay adigana aad isla socotaana ayaduna waa mid xag diiniyaho oo arin layda ilaahayda idin abuurtay idin faray ayay rabtay inay kula gudato waa labo midda saddexaadna dee dumarku dahabku waa jecel yihiin arrimahan yararka hadda aad ka hadlaysay waxaan ku dhihi lahaa aniga ninka ragga ah gabadha wax kasta waa siiyaa social media arrintaas taasi magac kale u yeeleen laakiin maaha gabadha soomaalida oo walaashaaye inaad qurxiso gaarteen sidaa u fiirinaysana waa dareemaya gabar qurxoon waay maasha allah waad nasiib badan tahay cadnan ma jira waxaan rabaa adaa nin raga gabdhuhu waxay yaqaaniin midi ku taag gabadhu hadday maseer badan tahay haddii nin ay kugu aragtay gabar ay kugu aragtay in ay ku cadow jibiso oo ay nin kale ku tusto way dhacdaa mararka qaar especially markay ku jeceshahay sababtoo ah intii aad wada socoteen kuma aada arkaynin timinka waqtiga timinka aad ku aragtay bal eeg adiga ruuxaaga in xoogaa dhiigaaga la kariyo waa meesha way ku jirtaa oo way dhacdaa marka walaalkeeyow ayaduna waa la hadli doonaa adiga maanta golaha naciiman ku jirtaa golaha calafdoon baad ku jirtaa gabadha walaashayna waa joogtaa iyaduna waa la hadli doonaa adigu qof maslaxadda islaamka iyo dadka walaalahaaye nin qaadanaya ma tahay inaad hadalkaaga dhamayso waan qaadanaya waxba laakiin hadlaan rabaa hadalka waan ku sii doonaa inteynaan bilaabin yacni muhiimaddu waxay tahay intaas aan usoo marayay maslaxad diyaar waa u tahay soo maa aye waa mahadsan tahay walaashay adaan kugu soo laabanayaa nutella cadnaan adagaa doortay adaa la sheekaystay adaa guur kula heshiiyey wiilaadan jeclaynne guur kulama adaa heshiisay waa kuu soo noqonaya cadnaan waa kuu soo noqonayaa raalli naqo maanta marxaladda waxay maraysaa madashaananu ku jirnaa dadka islaamkana waa maslaxa laga taliyaa maanta nutella walaashay maslaxad diyaar mau tahay inaan ka talin haddii anuu sidan saan rabo hadduu yeelayo waa ka ahayd raali haddaanu yeelin yeelayo iyo yeelayna hadda ma taala maslaxad diyaar mau tahay saan rabo hadduu sidii hore iska soo bedelaya waanu ahay warka waa cadiya diyaar waa tahay waa mahadsan tahay maxamed wax ma ku daraysaa inta maxamed dheere muhiimaddu waxay ahayd inaan aragno inay labadoodu maslaxad rabaan maslaxaddana diyaar bay u yihiin waan geli doonaaye ku soco cadnaanna wuu hadli doonaa ayadana way hadli doontaa okay horta waa wada salaamintiin dhammaantiinba inta madasha joogto iyo walaaladay horta waxaad ogaataan qofna qof ma qasbayo bes waxaan ka shaqaynayno waxa weeyaan wanaagga iyo walaaltinimada iyo farxaddiina qof walba joys buu leeyahay ma isku keen qasbayno taa horta waa inaad la socotaan tan xigta gabadha number 1 ah ayadaanu wareysan doonaa kadib
wiilkan waa wareysan doonaa idinkuma dheeraan doono nin walbaba howl buu ku jiraa idinkuna dee howshiina baa wadataan mid iyo labo waxaan dhihi lahaa intaad cara hadli lahaydeen idinkoo quslaya inaad hadashaan waa horta ka jeclaan leen number 1 number 2 haddaan kaftan yar idiin raaciyo labadiinaba haddii ay baranki amba dee qaraaxaysi ay tahay inoo sheega yaana waqti la wada luminin haddii ay xaqiiqatan tahay oo ilaahayna idinla ogyahay farxaddiina ayaa farxadayna ah waxaad idinku ku qanacsan tihiin gabadha walaashiina halkaas fadhiso iyo unta islaama oo idin daawanayso baa inoo muhiim ah taana waanu u baahanaa wixii hadala waanu gudageli doonaa wax oo dee maanta gar laysku haysta maaha waa in yar oo isfaham la'aan ah waa in yaroo isfaham la'aan ah ay tahay 600 garaam oo dahab ah oo laga hadli karo wax weyn maaha waa maladuun xajkuna waa meel muhiim oo alxamdulillaah intaan tagin ilaahay ha u kasay inay tagaan shaashada horta inoo yara taabtid ku maadsan tan ah cadano aan ku dhamay tan ahne dumar kale ma ila guursan doontaa waa sidii Naciimo ku sheegtay horta noloshu halkay ku dambeyn doonto Allahu a'lam laakiin habluhu sidii ku niyad sameeyeen ayaa adiga bil daan ah oo dee 100 ii dhaama famsa oo 100 ka badan wixii da biri ka maalin imaan doona Allahu a'lam annaka kama hadli karo adiguna kama hadli kartid qof keenana kama hadli karo marka waanu kaaga kala bixinaa meega bal inta su'aalo lagu weydiiyay haday ka jiraan inoo sheeg ku socota cadnan adiga maadaama ninka ragga aad tahay gabadha walaasheena fursad yar iisii adoraaliye ballan way waad hadlaysaa Nutella abay maanta maxaad ka tabanaysaa abuu aan xalinaa adigoo miisaamaya hadalkaaga anigu da sidii wixii hore aan isku dhacdo baan ka tab wax kale laakiin kama tabanayo nin wanaagsan waa nin xun muuhay waa gartay maanta wax aad dhahayso shayga kana ayaa dhibsaday ay keenay in cilaaqaadkeena uu isbedelo yani aad taabanaysa ma jiro may waa mahadsan tahay cadnan su-aasha adigana waan ku weydiinaya waana hadlaysaa waxaan rabaa marka waxa adiga aad tabanaysa xumeeyey xiriirkii wanaagsanaa ee guurka albaabka soo istaagay waxa bedelay oo aad tabanaysa ii sheeg inaad horta weligay allahay qofkan xiriir samaynay oo isku xumaani kuma soo laaban jacaylku hadduu wareero walaalnimadaa ka fiican jacaylku hadduu wareero walaalnimadaa ka fiican inantaa waxaan walaalahayn uma hayaanugu waa gartay balkaa waxaan usoo fuulay inaan cadafkeeda ka raadsado iyadaa intimi way sharfan tahay gabadhaan wanaagkooda joogna weeye wanaag baan kala tagnay baan farxad soo qaadanay laakiin hadda waxaan rabaa qof kale oo nolol kale la wadaago waad mahadsan tahay su-aashii koowaad aan ku weydiiyey hadayta waxay ahayd maslaxad diyaar ma u tahay jawaabtaaduna waxay ahayd haa fiiri waxaa jiro mararka qaar xanaaqa wuxuu ku dhaafiyaa sakano ama daqiiqado cara aad caraysan tahay baa waxay ku dhaafisaa waxaad wanaag oo xaqaad u lahayd inta carada ka soo degtid meesha tani waxaa yaallo gabar walaashaaye oo xiriir idin dhex maray oo aad jeclaatay qalbigaaguna adigaa lahaa shalay markaad jeclaanaysay gabadhii waa ku hor joogtaa yacni qofka waxaa la rabaa inuu miisaamo xilligaa la taagan yahay siduu uga bixin lahaa hadda adiga amar waaqaca ku hor yaallo amrigaas waaqaca ku hor yaallana wuxuu yahay gabadhii aad jeclay jaashaday kula saaran tahay 5,000 iyo dhowr boqol qof ku daawanayso walaale wax hadda maanta aniga aan dhihi karo cadnaan waxaas weyn uu tabanayaa ayuu guurkii uu damcay uu u baabi'inaya ma u jeedi marka walaale
arinta tani aan soo afjarnay gabadhana waqtigeeda qaaligana siisay naciima khayr allah ka siiye hore aan uga soconay maxaa tabanaysaa cabdiweli aan ma hadli karaa toona abay waa ku soo noqonaya nutella aniga waxaan kaa rabaa waxa aad tabanayso cadnaan ay kugu kalifay inaad hadalkaa dhahdo inaad arorto waxa weeye social media haddii dee aan wax sheego waxa laga yaabaa in way iscelcelinayaa mootintii raganimo maya waxa uu firi adigoo hadalkaaga miisaamayo oo miisaan saarayo muhiimadina gabadhiyo labada qof ilaahay arladan wuxuu u ballaariyay in labadii isku fahmi waayay ay kala maraan haddii iyada aan luuq wax kaga dhamaysan kar luuqaan u geli lahaa qolka naciimaanimi waxay calafkayga mar labaad cuganayaa calafkayga ayaa mar labaad cuganayaa baan idhin adeer marka dee waxa way qolka waxaan u joogaa caawa calafkayga mar labaad cugto daayar labaad noqon kari maayo marka anigu ina adeer dhankayga inantaa waxaan walaaltinimo hayn uma hayo naciimaay haddaad naag igu darayso ood leedahay wiilka waxa weeye inan kale ku ogaanaya waa sideeda diyaar baanu ahay laakiin xiriir mar iga xumaaday mar labaad kuma soo laabto waa mahadsan tahay hadalkaagu waa hadal cad balse midaan caddayn ninka raggaa waxaa la rabaa walaalkeeyow markii uu go-aan gaarayo wuu sababeeyaa hadda nutella cid adigana laguguma qasbaayo ayadana adiga laguguma qasbaayo adigana ayada laguma qasbaayo meesha tani waxaa yaallo dad islaam ahaan nahay maslaxaan raadinayna maslaxadda aan raadinayna waxay tahay qofka markuu ka hadlo waxa uu tabanayo then firi ayadoo gabar ah oo yacni markaan leeyahay gabar farnacayba kuma aanan fiiqin ayadoo gabaraha waxay garatay inay tiraahdo aniga maslaxaan diyaar u ahay waxa aan tabanayo hadduu iga daayo ma waa hadlaysaa nutella waa hadlaysaa abaa anigu kuma dhihin maslaxaan diyaar u ahay waxaan ku ihi ninkaas xalo u dambayso xitaa ay soo qaraacay ani ma rabo mana doonayo haddana meesha waa isugu nimaanan waa iskula kulanoon anigu inuu isagu saaran yahay iyo inta kale meesha waa ku jira requestiga ma fahanta okay dhegeysta marka adigana waa ku fahmay asagana waa fahmay meesha hadalka uu dhiganaya waxay tahay fiiriya anaa labadiina runta idiin sheegaya marka labadiina meesha tani waxa yaalla hadda waxa waaye waxa la yidhaahdo kibriyaa mahmaaha jirto labada qofood hadday samada isla aadaan ay buur isi saaraan waa dareemayaa social media ku jirtiin camera furan qof kastaba madaxuu dhulka ka ceshanaya labadiina waad israbtaa runta idiin sheegaa adigana waad rabtaa asagana waa ku rabaa laakiin asna iikaadii waad hadasheen asaguna karaamadiisu dhulka ka ceshanaya adigana karaamadaada dhulka ka ceshanaysaa annaga maslaxaan isku daynay labada walaalo ee king love iyo maxamed dheerna waa ila joogaan annagu maslaxan aan meeshaan u joognaa haddii albaabada aad naga soo xirtaan walaashayna waqtiga kama qaadaya aniga waa idila dadaalayna waxaan isku dayeynay inaan idin dhex galno yacni maxkamadna ma saarnidiin haddii aad diidaan aad dhahdaan anagu kama soo degayno maslaxaddii aan ka talinaynay ma qaadanayna haddaad dhahdaan joojka idinkaa iska leh maxamed iyo king waxaad aad ku darsanaysaa ku darsada okay horta hawshan way isku soo dhammaatay weeldaan inanta walaasheenan waxay ku dhahday noo sheegtay waxyaabaha aan dhibsana haddii la iga daayo ay ka mid tahay wax waliba wanaaga anna waa wanaaggii waa layga heli famsa laakiin inanka walaalkeen ah go-aan buu qaatay qofkana go-aankiisa waa loo tixgeliyaa waxaanu leenahay nimcooy inaga raali noqo hawshiinana iska sii wata hawshan waa isku soo dhammaatay dee qof hadduu go-aan qaatana dee ma qasbi karno oo ma dhihi karno ilaa samey famsa
ayaduna meel qarqabta ilaahay ha u kaso asaguna sidoo kale hadday jiraan oo dee wax la kala qaatay oo giftiya la raba in laysku kala celiyana dee waaye waa baab kale fahmaysaa maba ka hadli karo may cadlaan kama hadli karo okay taa hadday noqoto waa baab kale laakiin hadda isku noqdo idinkuma qasbi karno laakiin anigu waxaan isku daynay walaaladiin maadaama aanu nahay cadaan aan ku dhameeyo ay ugu celinaya maanaanu ma qasab kaga soo qaatay macna maya dhalinyaro yara sugo waxaanu cadaan aan ku yara dhameeyo naadir aan ku yara dhameeyo waxaanu ka wadnay maadaama ay yihiin walaaladiin wanaaga aad la jeceshihiin maslaxad dhexdooda dhex dhiga laakiin at least haddii aynan cari jirin marka horena waa idin iri yaa la cara hadlin haddaysan cari jirin ayadoona dee fi amaanila jidkeeda jir qeyr qaba adiguna dee sidoo kale dee anaguna inaga raali mid baa idiin sheegaya inuu caaway soo wici karin u sheega macnaha inuu soo go-aanka ayaga iskale walaale taleefonkaada iskale haddaad doonto qofka waa ka xiran kartaa haddaad doontona u fasaxi kartaa walaaltinimona waa wada hadli kartaano ma doonayno inaan dad islaama aanu kala geyno walaalo faraynis waa noqon kartaan laakiin maya annaga firi hadduu dhibaato kuu geysto kale xaq baan u leenahay inaan gacanta saarno oo lagaa qaban karo laakiin taleefonkaada hadday noqoto adaa go-aanka iskale cadnaanow marka waa kasta idinku soo wareejiyay mayga naciima anuu sidaa dhacay kheyran ku dhaaf xamaaligaygaan dib ugu laaban irantaas waxay tiri wixii laysiiyana waa soo celinayaa aniga wax gobonimadayda iyo sharafteeda iyo sharafta reer ka soo jeeda maaha wax gabadh la siiyey in la soo celiyo marka gabadhan adeertii weeye intan siiyey in ka badan waa ugu darayaa walaaltinimo raganimo waraani ay igu soo warwareegtaa nutella baroniga dhulka dhig waa dhamaata hore uga socdaynaa naciimo abaayo kheer allah ku siiyo maslaxadda aad ka talinaysay hore uga socdaynaa anigana sidoo kale shaqadaydan ku laabanaya aadaan u mahadsantahay walaal maslaxadda aad ka talinaysay waana ka xumahay dadka cadnaan waa mahadsantahay labadiina ii kaadiye idinku hadda xaalkiina waa dhammaaday dhammaan waxaan ka raaligelinayaa dadka 6,000 gaaraya ee ku jira maanta madasha tani in aan isku daynay balse aanu ku guulaysan weyne qasab maa in lagu guulaysto balse isku day buu ahaa waa isku daynay dee laga yaabaa kuwa horena waa lagu soo guulaysta kuwa kalena waa lagu guulaysan doonaa marka naga raali noqdo haddayna maslaxada ka tali weyne balse waa isku daynay naciima aada uma hastaa walaal thank you so much maxamed weli walaalo alle iyo ciise thank you waxaan aad bad walaal u mahadsan tahay iyo wiilkeennii ma aragtay maxamed dheere boqolkiiba boqol aad bay u mahadsan yihiin maasha allah ragganimo